marka mar walba waxaan jeclahay inaan qiro oon sheego bogga inaanan gacantayda ku haynin kaliya dad badan oo waxay gula qorna ay jiraan waad qiyaasi kartaa marka 1 milyan oo qof inaad war u sheegto aad rabto maalinkii 30 40 post sawirkan aad arkaysaan ayaa maanta noqday midka loogu hadalhaynta badan yahay barta Facebooka si dadka loo dareensiiyo in wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xatoosh uu yahay mid leeto oo aan naxariis lahayn aniga ahaan qoraalkan idiin muuqda sidoo uu leeyahay ayaan idin la wadaagi doonaa anigoo dhinacyo badan ka eegaya inuu qoraalkan soo qoray Cabdirasaaq Xatoosh oo dad badan oo barta Facebook isticmaalay ee eedeymo kala duwan u jeedinayaan halkani waa BBC waxaan idin kala hadlaynaa mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo Facebooka iyo waliba barteena internetka bbcsomali.com inta aan guda gelin ha hilmaamin inaad muuqaalkan like saarto una share gareyso asxaabtaada si ay u arkaan aragtideeda ku aadan qoraalkan aadka loogu hadalhayo maanta barta Facebooka maalin wanaagsan dhammaantiinba afrikada bari saacadu waa 5tii galabnimo oo gow ah barnaamijka qodobadan idinkugu hayana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee doorashooyinka galmudug murankii iyo isaysadkii biyaha webiga niil oo heshiis laga gaaray dowladda Jabuuti waxay ku gacan sayrtay go'aankii maxkamadda caalamiga ee dhexdhexaadinta ee London macallimiinta kani waa wariyaha BBC-da ee Cabdirasaaq Xaaji Xatoosh oo ka mid ah saxafiyiinta ugu caansan Soomaalida bartiisa Facebook-gan ay ku xiran yihiin in ka badan 1 milyan oo qof waxaana sida la boonbooninayo uu bartanka ka istaagay fadeexad iyo inuu ula dhaqmay si aan naxariis lahayn gabar beejkiisa aragta ka dhiibatay oo isaga ka codsatay inuu shaqo siiyo amaba uu shaqo u soo raadiyo qoraalka gabadha wuxuu ka turjumayay in gabadhu ay u baahan tahay inay shaqo hesho maadaama uu wariyuhu yahay mid caan oo dad badan ay yaqaanaanna in isaga uu shaqo u raadiyo haddii uu u helana uu lambarkan kala soo xiriiro dad badan oo qoraalka gabadhaasi arkay ayaa ka falceliyay marka la eego emojiga ay qoraalkan kor saareen daqiiqada kadib jawaabta yeeshay gabadhan ayaa noqotay mid dad badan ay hadda ka falcelinayaan oo ah mar dambe meeshaan waxa ku soo qorin marka runta laga hadlana waa laga fiicnaa sidaasi xitaa haddii uusan qofka jawaabta bixinaya uusan ku qancin gabadha qoraalkeeda waxay ahayd in qoraalkeedaba uu beejka ka saaro sababtoo ah awood ayuu u leeyahay si aysan dad badan u arkin marka dhinaca kale laga eego beejka uu leeyahay wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Xatoosh waxaa ku xiran in ka badan 1 milyan oo qof taasi oo keenaysa in beejka ay dad badan qoraayaal ka yihiin taasina waa midda saameynta ugu weyn keentay sababtoo ah qofka jawaabta soo bixiyay wuxuu awoodi karay inuu arko falcelinta dadka ay ka bixiyeen isla markaana waa uu ka saari karay tirada dadka qoraya beejka aad u badan ayaa keenaysa in fariimaha la soo dirayo qaarkood aan dib loo aqrin karin sababta tirada dadka Cabdirasaaq Xaaji Xatoosh waa kan isagoo sharaxaya in beejkiisa ay dhalinyaro badan wax ku qoraan marka mar walba waxaan jeclahay inaan qiro oon sheego bogga inaanan gacantayda ku haynin kaliya dad badan oo waxay gula qorna ay jiraan waad qiyaasi kartaa marka 1 milyan oo qof inaad war u sheegto aad rabto maalinkii 30 40 post la gelinayo sawirro leh fiidiyoyo leh warbixino leh marka mar walba waxaan jeclahay inaan iraahdo boggeena laba ayaan u kala qaaday aniga aragtidayda waa laba midkood oo aan muuqaalkan ku sharaxi doono marka koobaad inuusan isagu gacantiisa ku soo qorin qoraalkan dad badan oo beejkiisa wax ka qoran ay jiraan taasina ay keentay in jawaabta qofka markuu bixiyo kadib uusan fiirin falcelinta ka dhalatay midda labaadna anigoo ugu horeyn isma xijinaya Cabdirasaaq Xatoosh oo ah saxafi weyn oo si weyn loo garanayo balse muhiimadda ayaa ah in kaliya qofka aan seefta lagula boodin oo la siiyo waqti si uu kaga jawaabo arrintaasi haddii aan dhanka wanaagsan ka eegno adiga hadda muuqaalkayga daawanaya suurtagal ma ahan in haddii uu xitaa yahay Cabdirasaaq Xaaji Xatoosh uu gabadha ula hadla si walaalnimo ah qoraalkan uu ugu soo qoray in meel noocaan oo kale oo babliga aysan wax ku soo qorin kadibna uu gabadha si qaas ah ula hadlay waxaan rabaa kaliya inaan ku dareensiiyo warku waa sida loo jeedo oo kaliya laakiin waxay ku qurux badnayd in xitaa haddii uu sidaas sameeyo uu qoraalka meesha ka tirtiro marka mar walba waxaan jeclahay inaan qiro oon sheego bogga inaanan gacantayda ku haynin kaliya dad badan oo waxay gula qorna ay jiraan waad qiyaasi kartaa marka 1 milyan oo qof inaad war u sheegto aad rabto maalinkii 30 40 post la gelinayo sawirro leh fiidiyoyo leh warbixino leh marka mar walba waxaan jeclahay inaan iraahdo boggeena waan xasuustaa aragti ahaan waxa qoraalkan dabka ku sii shidaya waa inagoo ah Soomaali oo aad u jecel laablakaca iyo boonbooninta waxa ay kaliya arkaan marka midda wanaagsan ayaa ah in aadan go'aamin qofka oo aad waxaad rabto ka soo qorin adigoo aan dhinac walba wax ka eegin adiga aragtidaada ku darso oo commentiga ku soo qor sidee ayuu sawirkan kula muuqdaa